السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبشر حسن فاونديشن أما أبشر حسن اشتفتم أنا منى محمد عبدي إن شاكدي إنه وذا أما قصدي قوليد من لما قاعد بحذي هاترو هردسي حوايو هركي يقول بقى هايو waxaan kasii wadaynaa meeshay sheekadu noo joogtay ee ahayd Cumar xaaskiisii oo ayadana galabtii uu asagu ku maqnaa istaadiyonka asagii asxaabtiisa daawashadii ciyaarihii gobolada ayaduna fool noqotay insha Allah halkaasaan kasii wadi doonaa Jamila neeftuur bishu maqaniin hinraag kadib ebyan oo dareemaysa in nabarkii hayay hadda yaro daayay jiidaysana neef ay rabto inay wada gaarsiiso orgaanada jirkeeda oo muddo kooban xanuunka haya dartii neeftu ka maqnayd ayaa hal mar ku soo jeedsatay cod ka kor dhawaaqaya hee abaayo intay kor u yara eegtay ayay tiri naa orodoo intaad dhaqsato ee dacaasho u sheeg in fooli i qabatay Jamila oo isla markiiba dareen dhiiran galay dareentayna xaaladda walaasheed ku sugan tahay ee foosha ayaa isla markiiba dhankii albaabka laga baxayay talaabo dheerayn ah u qaaday ebyana ka dhaqaaqday ayadoo hadalkii ay waday wada dhageysan ama u dhamayn ebyan oo kasii daba hadlaysa isla markaana dareemaysa xanuunkii foosha oo mar kale soo qabanaya sidaa darteed neeftii yara jiidaysa ayaa ku cataabtay naa umulisadayna si degdeg ah iigu yeera ebyan marba marka ka dambaysa nabarka foosha ayaa ku soo badanayay hadda waxaadba moodaa inuu iska soo daba dhacayo oo aysanba jirin qadar yar oo neefta jirka dhammaantiis ugu qaybinayso Jamila oo talaabadii ay awalba dheeraynaysay hadda orod ku rogtay ayaa gurigii ee dacaasho saa uga fogeyn albaabkii dalaqtiray dayrka guriga oo laba dumar ah fadhiyaan hortoodana laba bakeeri oo shaah bigays ayaala ayaa hal mar dhankii albaabka Jamila ka soo gashay soo eegay Jamila oo hinraagaysa ayaa ku barooratay eedo ebyan ayaa fooshii qabatay kuna sii dabardartay umulisadiina u yarbay tiri labadii dumar ahaa oo markaa bisinka adkaar iyo ducaba afka ku haya waa inta is eegeen ayagoo weliba u hinqaday istaag degdeg ah mid ku tiri tii kale naacaasho bal adna gabadha u tag anaa umuliso xareedo u yeeriyee albaabkii bay si haleel ah uga wada baxeen ee dacaasho iyo Jamila oo u jihaystay xaggii guriga gabadhii fooshu haysay ee ebyan iyo islaantii kale umulisadii raadisay oo dhankii kale ee guriga umulisada ku aadanaa cagta saartay ebyan markaan fooshii aad bay ugu soo kululaatay jiif iyo joogna way qaban la'adahay inkastoo eedadeed caasha iyo walaasheed ka yar ee Jamila hadda soo gaareen haddana xanuunka foosha waa ku kali ee dacaasho ayaase u daliigaysa una marinaysa saliid macsaro ah ay Jamila soo qandicisay si ay murqaha jirku u dabcaan fooshana ugu fududaato mar alaale markuu nabarku qabto ayay cirka iyo dhulka inta u dhaxaysa ku yaraadaan naqaskana xanuun dartii isku dhajisaa ee dacaasho oo ah hooyo weyn oo dhalmadays ah ayaa Jamila oo ugub ah ku qancisa muhiimadda ay foosha u leedahay neefta oo si kontaroolan marna loo jiido ama loo qaato marna loo sii daayo ama loo neefsado intaa waxaa dhinac socda ee dacaasho oo Jamila adeejinaysa in ay diyaariso intay imaan umulisadu qolka gabadha lagu umulinayo iyo wixii agab ah oo gabadha umulaysa iyo ilmaha dhalan doona u baahan yihiin
Ebyan inkastoo tiris ahaanteeda ay islahayd weli waqti baa ku harsan oo sagaalkaagii ma go'in, haddana ma aysan diyaar garow xumayn oo umusha way isu diyaarisay wax walba oo ay awood dhaqaale u heli karto, haba ugu horeeyaan qaydadka loo jaro ku qabashada dhallaanka mujuqa ah iyo wixii ayada umul ahaan ay u baahnayd oo agab ah. Marka laga tago foosha oo sii xoogaysanaysa marba marka ka dambaysa, haddana waxay awoodda saaraysay adeejinta walaasheed yar ee u adeegaysa dareenkeeda kacsan awgii amaba da'deeda oo aad u yar la ajligeedna aanan u fulinayn si feejignaan ah hawsha laga sugayo ama loo dirayo. Inkasta oo guriguba ka kooban yahay qol iyo barsad isku furan, qol labaad oo wiilal familka ah oo laba la dhalatay odaygeeda Cumar, wiilna ayada walaalkeed yahay, ahna arday iskuulada wax ka barta. Intaa waxaa dheer in gurigu leeyahay daarad weyn, meel yar oo waab camal ah oo jiko ahaan loo isticmaalo iyo musqushii. Haddaba qolka inay ku umusho in loo diyaariyo noqday ayaa ah qolka fadhiga oo run ahaantii ah qol ka mug yar labada qol ee kale, kuse qasbanaaday in noocyo badan loo isticmaalo sida fadhi ahaan ama qada ahaan. Waxaa kaloo habeenkii lagu soo xereeyaa wax walba oo bannaanka iyo jikada buulka ah ee yar looga seexan karin oo waa stoor. Inkasta oo Jamiila badanaa qaraabo dariska ah lasoo seexato, haddana marar badan ayaysan ka fursan jirin inay darin yar ku fidsato isla qolka. Haddase waxayba u diyaarin umulbaxa walaasheed sariir askareed la isku laabo marka waagu baryo si aysan boos ciriiri u samayn oo uuba ku seexdo labada wiil ee seediyaasheed ah mid ka yar ayaa hadda daruuri noqotay in ay ku umulbaxdo, wiilashuna hal sariir wada ciriirsadaan. Jamiila waxay u howlgashay inay qolka barsada ka soo gurto kuraasta fadhiga qaarkood iyo kuraasta qadada oo intii muddo ahba la isticmaalayn boos la'aan darteed meel koona ah qolka inta la isku dul rasteeyay laga dhigay, iyo qalabaad kale oo badan ayadoo u daadgureynaysa siday walaasheed ku amartay qolka wiilasha seexdaan. Inkastoo isbays badan lahayn, qolkan laftirkiisa uu ku qaado waxaas oo agab ah iyo hoy u noqoshada 3 wiil oo barbaara iyo ardayba ah. In muddo ah kadib waxaa gurigii soo gaaray umulisadii iyo islaantii raadisay ee qaraabada la ahayd laguna magacaabo Duniyo. Waqtiga oo casar liiq ahaa, salaadii maqrib tukashadeedii kadibna wiilashii guriga wax kaga noolaa ee la dhashay Cumar iyo Ebyan soo guriyo noqdeen. Cumar oo walaashii Xadiyo guriga jidcadaha gala laabadkiisa markuu soo galay kulmeen. Cumar, Xadiyo haya abaayo. Isla mar ahaantaa Cumar baabuurkii inta ka degay walaashiis ismarxabeeyeen, agabkii ay wadatayna baabuurka kuraasta gadaal ku guray. Xadiyo inta ilmihii yaraa sinta ku ridatay, waryaa Guuleed ma seexatay? Dhankii shirka horena fariisatay, Guuleedna dhabta saartay. Cumar asagoo baabuurkii kicinaya, haye Xadiyo, ma Guuleed baad soo celisay? Xadiyo oo cod daciif, daal iyo safar badani ku jiro, si taah ahna ugu yuustay, waxaan samayno garan mayno, wiilkii jiraw ka bixi la'yahay, 2 isbuuc oo isku xiga ma caafimaad qabo, inna la ku cadaabaan ka baqayaa. Cumar, haye dawooyinkii ayaantii dhaweyd loo qoray ma ku dhammayseen? waxbay ka tari waayeen. Xadiyo, waxba garan mayno, intaa dawo unbaa lagu daldalin, wax ka soo naas cadna ma aragno. Cumar, hadde ma ku dhammayseen siduu dhakhtarku yirise
ma u siiseen? Hadiyo: waan siinay mindhaa daawooyin naf leh bay ahayn. Cumar: maxaa dhacay? Anaaba soo gaday. Daawooyinka Talyaanigay ahaayeen. Daawadaas say tahay haddaan loo qaadan waxba tari mayso. Cumar ayaa baabuurkii gurigiisa hor istaajiyey. Dhalinyaradii xaafadda ku noolayd hor fadhiyaan maadaama hooyadii reerku fool tahay. Fadlan haddaa sheekadan ka heshaan, subscribe, like and share noo saara. meesheedaan nooga sii wadi doonaa insha Allah. waana ku mahadsantihiin dhageysigiina iyo haddaa kommentaar ka bixin kartaanba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.